ninkan ujeedaan waa mid ka mid ah hackeriska adduunyada ugu khatarta badan. Wuxuu u dhashay waddanka Ruushka. ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Mikhail Mafeev, laakiin wuxuu leeyahay magacyo aad u fara badan. magaca khatarta ah ee uu caanka ku yahay maqalkiisana aadka looga boqo waxaa la yiraahdaa Wazawaka. ninkan dowladda Mareykanka ayaa waxay ku raadinaysaa oo madaxiisa dul dhigtay 10 milyan oo dollar, yacni qofkii keena xog muhiim ah oo ninkan lagu soo qaban karo waxaa farta laga saarayaa 10 milyan oo dollar. haddii aad gashid bogga rasmiga ah ee wasaaradda cadaaladda Mareykanka waxa ugu tagaysaa sawirada ninkan oo ka buuxa oo la baadigoobayo. hadda xagee hackerkan khatarta ah Mareykanku ku arkayaan? waa nin Ruushka ku dhex nool oo dowladda Ruushkuna ilaashanayso. ninkan wuxuu hogaamiyaa shirkad dhan oo hackeris ah isagoo weeraro dhanka kombiyuutarka ku qaada dowladda Mareykanka. dambiyada loo haysto ninkan waxaa ka mid ah inuu jabsaday xogta shirkado Mareykan ah iyo sidoo kale xogta saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska Mareykanka. sidoo kale ninkan dambiyada loo haysto waxaa ka mid ah inuu jabsaday xogta adreeska guryaha dad muhiim ah oo Mareykan ah iyo xogahoodii caafimaadba. deedna xogaha xasaasiga ah wuxuu ku faafiyay si bilaash ah internetka. dhibaatada weyn ee khatarta ay sameeyaan dadka hackeriska waxaa ka mid ah xogaha khatarta ee xasaasiga ee ay helaan ma qariyaan si free oo bilaash ah ay internetka ugu soo faafiyaan si dadka dhan ay xogtaas u wada ogaadaan. hackerkan waxyaalaha ugu khatarta badan ee uu sameyn jiray waxaa ka mid ah barnaamijka madax furashada. tusaale ahaan shirkad dhan oo kala socota oo shaqadeeda wadata ama qof kombiyuutarkiisa ay arrimo iyo xogo muhiim ah ugu jiraan ayaa hal mar inta kombiyuutarka lasoo dhex galo wax looga xirayaa. markaas baa shirkadii ama qofkii uusan kombiyuutarkiisiiba gudaha u geli karin, yacni kombiyuutariskii waxay noqonayaan caag ku ag yaalla. markaas baa ninkan iyo tiimkiisu waxay dadkaas ama shirkadahaas ka qaadayaan lacag madax furasho ah. waxay ku leeyihiin haddii aad rabtaan in xogtiinii muhiimka idin ahayd aan fasaxno lacag intaas leeg waa inaad bixisaan oo aadna siisaan. markaas bay khasab ku bixinayaan dadkii ama shirkadihii. hackerkan Ruushyaanka ah waxaa la sheegaa in uu qaatay madax furashooyin markii la isku dardaro gaaraysa 200 milyan oo dollar. ninka intaas oo dowladood ay raadinayaan ma ahan nin dhuunta oo isqariya, waa nin si caadi ah social media oo isticmaala. maalin dhow tababartiisa Twitterka wuxuu soo galiyay sawir ku jeesayo dowladda Mareykanka, yacni wuxuu soo galiyay bartiisa Twitterka funaanad ay ku qoran tahay sawirkii ay faafisay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ee ay tiri ninkan hala soo qabto. waa sawiraantiisa iyo lacagtii madaxiisa la kordhigay. dhanka kale hackeriska Ruushyaanka ah ayaa waxyaalaha ay sameeyaan aad u khatar badan yihiin oo aad loola yaaba. tusaale ahaan bishan ku jirno gudaheeda hackers Ruushyaana ayaa waxay qaateen xog xasaasi ah oo taalay xarun nuclear oo waddanka Ingiriiska u lahaa. su'aal yar oo kooban, dagaalka cyber security-ga ah ama in xogaha la kala tabsado ee dowladda Mareykanka iyo Ruushka u dhaxeeya kee ayaa ku guuleysanaya ayaa is leedahay adigu?